السلام عليكم. halkan waa Hanweyn Media hoyga cilmiga iyo teknoolajiyada. Haddii aad jeceshahay horumarkeena, fadlan channelkan subscribe inoo dheh, kuna xirnaa goor kasta oo noqo dhiirigeliyaheena koowaad. waad ku mahadsan tahay booqashadaada. Assalaamu calaykum. waxaan wanaagsan daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha naga mudan meel walba aad joogtaan. waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub. muuqaalkan insha Allah hadduu Ilaahay waxaan ku baran doonaa xaqiiqooyin ku saabsan maroodiyaasha. balse daawada haddii ay tahay markii ugu horeyso soo boqoto channelkeena Hanweyn Media, waxaan ka codsanaynaa inaad subscribe inoo saarto, sidoo kalena aad furto gmailka si aad u noqoto qofka ugu horeeya mar waliba hela muuqaaladeena cusub. xaqiiqda koowaad, maroodigu wuxuu awoodaa inuu maqlo dhawaaqyo ka fog masaafo dhan 5 mayl oo u dhiganta fogaan gaaraysa 8 kiiloomitir. xaqiiqda labaad, maroodigii ugu weynaa ee ebed adduunka laga diiwaangeliyo waxaa laga helay dalka Angola, culeyskiisuna waa 11,000 kiilogaraam, halka dhererkiisuna yahay 3.96 mitir. xaqiiqda saddexaad, maroodigu wuxuu iskaga ilaalin karaa fallaaraha cadceedda ee waxyeeleeya jirkiisa isagoo adeegsanaya ciid. xaqiiqda afraad, miisaanka carabka nibiriga buluuga ahi wuxuu la mid yahay miisaanka maroodiga. xaqiiqda shanaad, sidka maroodiga waa 22 bilood oo ku dhow 2 sano, waana noolaha ugu sidka dheer inta wax dhasha, halka dhallaanka maroodigu uu gaarayo culeyskiisa xilliga dhalashada 80 kiilogaraam. xaqiiqda lixaad, maroodigu wuxuu ka baqaa cayayaanka duula qaarkood oo ay ugu muhiimsan tahay shinnida. xaqiiqda toddobaad, maroodiyaasha ugu waaweyn dunida waxay ku nool yihiin kaymaha qaaradda Afrika. xaqiiqda sideedaad, ilkaha maroodiga waa sida qofka oo kale maadaama uu ku dhasho ilka la'aan, kadib waxaa ka soo muuqanayo ilka caano, ugu dambayna waxaa u soo baxaya ilkaha joogtada ah. xaqiiqda sagaalaad, maroodiga waxaa lagu gartaa caqli iyo barasho degdeg ah, waxaana aragnaa maroodiyaasha qaar oo u isticmaalaya gacantooda shaqooyinka farshaxanka sida sawirka iyo midabaynta. xaqiiqda tobanaad, cagaha maroodigu waxay leeyihiin 5 farood, kaliya 4 ka mid ah ayaa lagu daboolaa cidiyaha, halka midda kalena aanay cidiyo lahayn.